wareegtadani oo goor dhaweyd ka soo baxday banka dhexe ee Soomaaliland oo ku saxran gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa waxa ay dhignay sidan ku socota dhamaan xawaaladaha ka howlgala Soomaaliland ujeedo wareegto sida uu dhigayo cutubka labaad qodobkiisa afraad farqadiisa R ee xeerka banka dhexe ee Soomaaliland waxa kamida ruqsadsiinta diiwaangelinta iyo inuu nidaamiyo kor joogana banku sariflayaasha lacagaha qalaad adeeg bixiyaasha lacagaha hawlwadeennada habka lacag bixinta adeeg bixiyaasha damaanadaha hawlwadeennada habka wareejinta damaanadaha iyo wixii kale ee loo soo gudbiyo inuu mas'uul ka noqdo ee waafaqsan xeerka LR 54 2012 waajibaadka asaasiga ee banka dhexe ee Soomaaliland waxa kamida ilaalinta xasiloonida suuqyada maaliyadeed sida uu dhigayo cutubka labaad qodobkiisa afraad ee farqadiisa R ee xeerka banka dhexe ee Soomaaliland hadaba iyadoo laga duulayo qodobada kor ku xusan waxa banka dhexe ee Soomaaliland ku wargelinaya dhamaan xawaaladaha ka howlgala Soomaaliland qodobada soo socda inaanay qaban karin lacag dhigaala haba yaraatee oo cusub laga bilaabo taariikhda ay wareegtadani soo baxday 2 in dhamaan wixii dhigaala ay hayaan ay dhigaan banka dhexe ee Soomaaliland ama bangiyada ruqsadda haysta ee hoos ku xusan muddo 30 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta taariikhda ay wareegtadani soo baxday bangiyadaasi oo kala ah Dahabshiil Bank, Dar es Salaam Bank iyo Premier Bank 3 in dhamaan xawaaladaha ay ka dhacday ruqsadda ay dib uga soo cusboonaysiistaan banka dhexe ee Soomaaliland muddo 15 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta taariikhda ay wareegtadani soo baxday 4 in dhamaan xawaaladaha ruqsadda hore uga qaadan banka dhexe ay iska soo diiwaangeliyaan ruqsaddana ka qaataan 15 maalmood gudahood oo ka bilaabanta taariikhda ay wareegtadani soo baxday Xamse Cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa